Assalaamu calaykum sharafta badan kusoo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tube ood uga barateen barnaamijyo xiiso badan. maantana mowduuca waxaan idinkugu haynaa barnaamij ku xusan dhanka description-ka ee janaalkeena. wuxuu yahay barnaamijkaasi dhiirigelin. waxay dadka intooda badani isweydiiyaan jawaabta waafiga ah ee loo hayo ereyga dhiirigelinta. dadka wax qora jawaabo iyo sharaxaadyo kala duwan ayay ka bixiyaan dhiirigelinta. waxaan halkan kusoo qaadan doonaa su'aalo ku saabsan dhiirigelinta. waxaan oran karnaa dhiirigelintu waa halbowlaha haga ruuxa bini'aadamka ah. waxaan kaloon ku tilmaami karnaa inay dhiirigelintu kaalinta ugu weyn kaga jirto in ruux waliba oo uu ku dhiirto inuu wax qabsado kana rumeeyo hadafkiisa mustaqbal. fadlan haddaad nagu cusub tahay kusoo biidh adigoo riixaya batonka casaanka ah. furo gambaleelka si aad ula socotid muuqaal waliba oo aan soo gelino barteena youtube-ka. waa maxay dhiirigelin? waa maxay awoodda ay leedahay dhiirigelintu? ma u baahan yahay ruux walba oo bini'aadamka ka mid ah dhiirigelinta? waa maxay hoyga dhabta ah ee laga helo dhiirigelinta? waa maxayse sifooyinka dhiirigelintu? waxaan jeclahay inaad ka bogatay su'aalaha aan ku soo xusnay muuqaalka intiisa hore. haddaba ka bogo jawaabo waafiya oo waxtar ku leh, kuna dareensiin doona xaqiiqada dhabta ah ee jira iyo micnaha dhiirigelinta. jawaabo: dhiirigelintu waa kalsoonida, farxadda, akhlaaqda, deganaanta iyo jacaylka. waxaan oran karnaa in sharaxaadda dhiirigelintu tahay kalsooni, kalsooniduna tahay dhiirigelin. 2. awoodda dhiirigelintu waxay tahay inaad ku faraxdid wax walba oo aad sameynaysid. marka loo eego sharciga, waxaad ogaataa dadka kuwooda wanaagsani inaysan kugu dhiirigelinayn sameynta caadooyinka xunxun ee ka baxsan xadka sharciga sida diinta, dhaqanka iyo maskax fiyoobaanshaha. 3. haa, wuxuu u baahan yahay bini'aadamku dhiirigelinta. sababtuna waxay tahay, tusaale ahaan, adigana hadda daawanaya muuqaalkan, haddaadan ku dhiiran ama aanu ku qancin, ma aadan daawateen. ankeemaadan aamini lahayn inay jiraan muuqaalo ka hadla dhiirigelinta. jawaabta 4. hoyga dhabta ah ee laga helo dhiirigelintu waa qalbiga. waxaad ogaataa in adigu aad tahay mid ka mid ah dadka caalamka ku nool. waxaa ruux walba isna ku dhex nool waxyaabo fara badan oo la soo koobi karin. dhiirigelintu waxay haddaba hoy ku leedahay qalbiga ruux walba oo bini'aadam ah. 5. waxaan halkan ku xusaynaa sifooyinka dhiirigelintu leedahay. waxaa jira sifooyin fara badan oo loo asteeyay dhiirigelinta. waxaan ka soo qaadan doonaa 3 sifo oo muhiim ah, waxayna kala yihiin: 1. is-aaminidda. 2. isku baraarujinta falalka wanaagsan. 3. isku soo dhowaanshaha bulshada. halkaana waxaa inoogu eg barnaamijkeenii aan uga hadlaynay dhiirigelinta. wixii fariin ah waxaad inoogu reebi kartaan qeybta commentiga. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. isma dhaafno insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.